halkan waa Dr. Ayub Stadium waxa kulan aad u xiiso badan oo ku dhaxmaray Garisbinto iyo sidoo kale Isgoys waxaana 3 gool iyo gool ku adkaatay Garisbinto kulanka oo ahaa mid aad u xiiso badan labada dhinacba waxay soo bandhigeen ciyaar aad u qurux badan kaas ay markaasi aad ugu riyaaqayeen dhamaan taageerayaashii u soo daabasho tagay kulankan hase yeeshee gool ayaa waxa la timid qaybta horeba Garisbinto oo markaasi u muuqatay in markaasi ay go'aamin kartay kulanka kan hase yeeshee ciyaarta waxay socotaba qaybta labaad waxa gool barbara ah la timid oo gool penalty ah heshay Isgoys hase yeeshee laba gool oo degdeg ah ay qaybtii ugu dambeysay ciyaarta waxa heshay Garisbinto sidaas waxa 3 gool iyo gool ugu adkaatay Garisbinto oo wacdaro aad u weyn ku muujisay Dr. Ayub Stadium sanadka kan uu ka duwan yahay sanadadii hore waxaad moodaa in deegaanada sanadkan ay aad isku soo diyaariyeen Garisbinto ayaana la timid ciyaar wali ah oo ka duwan ciyaarihii ay hore u soo ciyaartay 6 dhibcood ayayna sidaasi markaasi ay ku tagtay hadaba kulankii xiisaha badnaa ee u dhaxeeyay Isgoys iyo sidoo kale Garisbinto ayaa weyn noqotay anigu waa saaxiibkiin Jelena Cali Muxuu Kamaru oo idin dhahaya Soomaaliya Sport Hormarle